والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفتن كي عوضة وحمد لله مدحوين الشيخ شريف النور مي كفتن كلا كم فرنا ماشي كاسا نوضة كفتن عاود دالينا دمان مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو قدوميها أقل كسرة قدوم كحين قلها شعبه مدحويني هوري الصومالية مدن شريف شيخ أحمد مدحوينها عصوب إلى الدورتين مدن سعيد عبد الله داني هي مدحوينه كحولينك دمان قدونك برلمانك عصب يحمناها برلمانك محو هاي دولة قبلتك دولة بنتلان سيدو كلا الماكم مجرى صاحب بدي مدحوينياشا دولة قبلت يدا وحن لها دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كجدال عاو هل كان وحال سوي مدحيد همبليو waxaan aad iyo aad u hambalyeeynaa dadaalka iyo wanaaga dawladda Puntland iyo dadka reer Puntland ba ay muujiyeen wax badan oo hore wax badan ayuuna daliil u yahay guushaas iyo wanaagaas caaw meesha la isugu yimid sida loo sheegay dad badan oo Soomaali ah iyo kuwa aan Soomaali ahayn ba way yimaadeen xigmadda ka dambeysana waxay tahay mar walba guushu waa aabayaal badan tahay marka meesha waxa ka dhacay waa guul marka qof walba guushaasi inuu dhinaciisa oo muxuu ahay uga daarto oo kala qorxanaata loo yimiday waa rajaynaynaa inay guulo badan oo kalena noo soo wada xigsadaan waxaan jecelahay in aanan gadaal iyo taariikhdii wax badan aanan ku noqonin oo aan mustaqbalkii waxa soo socdo laba kalmadood ka iraahdi alla yiraahdo wanaaga iyo amaanta iyo aan caawa sheegnay oo dhan haddii aanay wax nooga tarin mustaqbalka soo socdaahay amaanteena sheegisteeda macna badan kuma fadhido waxaan leeyahay waxaan ka shaqeynayna oo dib loo dhisayo la unkayo waa dawlad Soomaaliyeed dawladnimana sideedaba shuruuc iyo qawaaniin iyo nidaam iyo dhaqan fiican oo suubsama ayay ku salaysan tahay marka waxyaabaha noo taagan aasaaska u ah muxuu ahay dadka Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen muxuu ahay oo aad halkan hadaati uu carabkiisa ku adkeeyay madaxweyne faroole yaan xoojinaya shuruucda in la ilaaliyo mar walba waa muhiim dastuurka inaan ilaalino qawaaniinta kale ee dalka u degan aan ilaalino sidaas oo kaliya ayaa guush ay ku imaanay wixii lagu heshiiyay dastuurku waa qabyaa la yiri waxa noogu yaala aan ku dhaqanno wixii dastuurka aanan noogu oolinna hal iska warsado oo hal laga wada hadlo on seeyelna hal yiraahdo si la yeelo lama waynayo xalaka soo baxayo laakiin inta dastuurka noogu taaloon ku dhaqanahay wax weyn oo guushan caawa aan halkan u wada fadhino ku naaloonayno wax kale kuma ay imaanin wixii qornaa ee lagu heshiiyay oo lagu dhaqmay oo wixii kale rabitaan ay iyo muxuu ahay cilada kale laga muxuu ahay dul qaatay ama laga adkaystay ayaa guusha caawa keentay marka mar walba madaxda Soomaalida ah ee talada haysa ee mustawa kasta leh dardaarankayga aan caawa halkan uga jeedinaa wuxuu yahay aan aad iyo aad ugu dadaalno inaan ilaalino muxuu ahaa dastuurka iyo shuruucda noo degan heer federaal iyo heer muxuu ahay goboleed haday tahayba intaba aan wada dhowrno muxuu ahay kaas ayaa meel la geynayay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan sidoo kale u hambaliyeeyo una mahad celiyo saaxiibkay Professor Cabdiweli Cali Gaas oo runtii meeshan wanaaga ka dhacay mas'uuliyadeedii iyo soo dharaandhirinteedii iyo keenisteedii lahay waxaan leeyahay madaxweyne adiga iyo tiimkaagii ee kula shaqeeyayba adiguna waa mahadsan yihiin hambaliyaan leeyahay waana aad iyo aad u bogaadinaya intaa kadib wax badan garoowa laga hadlay taariikhdeedii la sheegay aniga siima dheereen markii ugu dambeysay muddo aan aad u fogeyn 3 sano ka yar ka hor ay ugu dambeysay garoowe markaan soo degaynana garoowdii aan ogaa garoowo kale oo barbartaa loo dhisanaan soo aragn laakiin waxa in la isweydiiyo u baahan waxay tahay dadka qaraabada ah ee garoowo degan qarniyaal la soo dhaafo dhan garoowo waa deganaa jireen iyo dhulkan sidaanna ahaa ma jirin sidaan maxay u noqotay marka garoowe waxa inaan fahamno u baahan waa midaas nidaamka dawladnimada ilaalinta shuruucda kala dambeynta is ixtiraamka iyo dawladnimada waxa garoowe sida ay tahay ka dhigay waa dawladnimo meel walba iyo mustawa kasto aan joognaba
dowladnimada aan xoojinno taasaa wanaag iyo sharaf iyo heybad iyo karaamo ay ku imaanay mid adduunyo iyo mid aakhiraba laanna meelaanan dowla ka jirin cibaado fiican kama jiri karto isxaq dhowr badan kama jiri karo dambiye badanna waa ka jiri karaan marka aakhiradaada xataa ma samaanaysa haddii dowladnimadaadu aanay samayn marka dowladnimada aan ku dadaalno waxa guusha iyo wanaagga caawa halkan yaalla keenay waa duun inkasta oo dadka qaarkiis ay ku doodaan yiraahdeen qaangaarnimada ayaa muxuu ahay sabab u ah laakiin annaguba guud ahaan Soomaaliya 30 sano ku sii dhownahay 28 sano 2020 aan wada hiigsanaynahay waa 30 sano marka 30 sano aan dawlad ahayn iyo 30 sano oo duruufahaas kale oo adag dagaal sokeeya dawladda ku meel gaara dawladda maxaa ahay tabar daran waa 30 sano kale maanta waxaan u baahanahay waxay tahay inaan ka fakarno oon caqligeena isugu geyno 30 sano ee ku xiga Soomaaliya noocee ah ayaan ka talinaynaa 30 sano ee soo socda Soomaaliya noocaan rabnaa inaan ka fakarno oo aan maxaan ku raadaa qorsheyno oo aan dejino waa yeeli karnaa waxaan u dhigi karnaa si inta dambayso dhammaatimaada aanay ka leexan karin 1943 13 wiil oo dhalinyaro ah aqoon nagu dhammayn xoolo nagu dhammayn maanta waxaan haysano faraha badan oo dhan aanan haysanin ayaa meel inta isugu tagtaa dhacday dawlad Soomaaliyeed oo xor ahaan rabnaa hadafkeen inaan gaarno aan rabno waa ka wadada loo marayana waa wadada halganka ah 10 sano in ka yar inta badan talada waa ka baxeen xisbigii SYL ay asaaseen xataa taladooda kuma ayan waarin laakiin Soomaaliya dawlad ha noqoto qofka leexi karto waa la waayay qof kastoo ka dambeeyay ayaga yimiday waxay ku shaqaysay Soomaaliya sidii dawlad u noqon lahayd haddii aan qorsheyno dejinno 30 sano kadib Soomaaliya noocee ahaan rabnaa inta naga dambayso wadadaas inay maraan way ku qasboonaan doonaan si Soomaaliyada fiican ku riyoon karno loo gaaro 2050 ka hadii la yiraahdo inta nool hadda joogtay dhalinyarada ay inta iman doonto ay ugu naalooto mar kale hambalyo dawladda iyo dadka reer Puntland guud ahaan hambalyo Soomaaliya guud ahaan waa wax guul ah reer Puntland kaliya Soomaaliya dhan ayaa ku faanayso sidaanina waa ka suurtagal Soomaalida waaye macnaheeda marka Soomaaliya dhan waa ku faanayso marka aan leeyahay hambalyo intii ka soo shaqeyso waa mahadsan tahay intii ku tartantay ku guuleysay isku dhowrtayna waa mahadsan tahay inta kalena tusaale fiican ha u noqoto mar kale aad iyo aad ayaa u mahadsan